ma kugu dhacday inaad file ama software aad la soo degtay qasay dhammaan computerkaaga ama dhibaato kaa soo gaadhay ma rabta inaad hesho meel aad ku tijaabin karto software kasta ama website kasta halkaas oo ammaan ah dhibna aanay ka soo gaadhin computerkaaga ama ka madax bannaan computerkaaga maanta waxaan idiin wadaa Windows Sandbox oo ah barnaamij la socda computer kasta oo ku jira Windows 10 ama Windows 11 kaas oo Microsoft ugu talagashay inaad ku tijaabin karto barnaamijyada iyo website-yada aad ka baqdo in ay dhibaato ka soo gaadho computerkaaga. Muuqaalkan maanta waxaan kugu bari doonaa sida aad u isticmaali lahayd ugana faa'iideysan lahayd Windows Sandbox. Sidaan hore u soo sheegay, Sandbox waa feature la socda ama ku jira computer kasta oo uu ku jiro Windows 10 ama Windows 11. Editionskiisuna ay yihiin Professional ama Enterprise Edition. Sidaa darteed ma baahnid inaad la soo degtid ama aad soo download garaysid software-kan ama feature-kan, balse kaliya waxa uu kaaga baahan yahay inaad furato ama aad enable tiraa si aad u isticmaasho adiga oo raacaya tallaabooyinkan ku tusi doono muuqaalkan. Tallaabada koowaad aad qaadaysa waxa weeyaan in aad hubiso Windows-ka ku jira computer-kaaga ma professional ba mise waa Enterprise Edition. Labadaas oo kaliya ay ku shaqeeyaan gaar ahaan Windows-ku ma Windows 10 ba mise waa Windows 11. Marka inagu tusaale wax ku qaadan doonaa Windows 11 gaar ahaan Professional Edition. Marka sideen ku check garayn karnaa? Waxaad soo furtaa start markaad soo furto waxaad search garaysaa system information markaad sys qorto isaga ayaa kuu soo baxaya markaad click siiso halka aad u fiirsato OS name-ka waxa ku qoran Microsoft Windows 11 Pro marka waa Windows 11 Professional Edition. Sidoo kale waxaad ku check garayn kartaa inaad soo furto File Explorer markaad soo furto waxaad tagtaa this PC kabacdina right click ku dheh waxaadna ku dhufataa markaa properties markaad ku dhufato waxaad arki doontaa Windows-ka edition-kiisu inuu yahay Windows 11 Pro ama Windows 11 Professional Edition. haddii Windows 10 Pro yahay waa sax, haddii yahay Windows 10 Enterprise waa sax, haddii yahay Windows 11 Enterprise-na isna waa sax oo kugu jira. inta markaad hubiso talaabada aad u gudbaysaa waxa weeyaan in aad enable tiraahdo ama aad soo furto ama aad u furto computerkaaga Windows Sandbox. si aad ugu furto haddaba waxaad tagtaa start mar labaad markaad tagto programs kugu jira waxaad search garaysaa ama waxaad search ku qortaa turn on ama turn Windows features on or off markaad turn qorto isaga inta kale ku dhamaystiraya kabacdina waxaad ku dhufataa markaa click markaad siiso waxa kuu soo bixi doonta daaqadan waxa halkan aad markaa ka xidhi kartaa featureska aad rabto inaad computerkaaga ka xidho haddii aad featureska qaar rabto inaad ku soo dartana halkan ayaad kaga soo dari kartaa. marka hoos markaad socoto waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay Windows Sandbox oo ah kan button-kan ayaad markaa tick siin doontaa ama halkan yare boxkan yare ku aga ayaad tick siin doontaa. markaad tick siiso that means enable ayaa tidhi. intaa ka bacdi waxaad ku dhufan doontaa okay markaad ku dhufato wuxuu raadin doonaa faylashii Windows Sandbox-ka oo already ku jira computerkaaga laakiin aan enable laga dhigin ama aan furnayn. marka wuxuu ku weydiin doonaa inaad computerkaaga restart garayso. waxaad oran doontaa markaa restart now ama don't restart. markaad don't restart tiraahdo marka dambe restart tiraahdo ayuu changes-kii oo dhan computerkaaga ku install garayn ama u dhamaystiray. waxaan ku dhufan doonaa markaa restart now markaan ku dhufto computerku waa istamin doonaa and then dib marka uu soo shidmo ayaan isla arki doonaa inuu igu soo kordhay markaa feature-kii Windows Sandbox iyo in kale. computerkaaga marka uu restart ka dhameeyo waxa ku diyaara Windows Sandbox. marka waxaad tagi doontaa start markaad tagto waxaad search garayn doontaa Sandbox markaad SA ba qorto isaga ayaa ku soo bixi doona click ayaad siin doontaa. markaad click siiso Windows Sandbox waa uu inoo soo furmayaa imika wuxuuna inoo diyaarinayaa computer aynu isticmaali karno
oo aynu wax ku tijaabsan karno website-yada aan ka baqanana aan ka booqan karno ama aan ka geli karno isagoon computerkeena mainka ah aanay wax dhibaatii soo gaadhin waa kan wiinoo diyaariyey full screen ayaad oran kartaa full screen markaad tiraahdo waxaad u isticmaali kartaa computerkan si lamada qaabkeed u isticmaali lahayd computerkaaga mainka ah waxaad ka booqan kartaa website-yada aad ka baqaso iyo barnaamijyada aad ka baqaso inay dhibaato computerkaaga soo gaadhsiiyaan markaad ka dhamaysatan ayar baad iska xidhasaa oo aad close oranaysaa waxaad oran kartaa restore down minimize baad oran kartaa waa barnaamij ku dhex jira computerkaaga u dhaqmaya sidii computer madax bannaan kana madax bannaan computerkaaga oo haddii aad computerkaaga aad ku shubto barnaamijyo ama aad computerkan barnaamijyo aad ku shubto computerkaaga mainka kuma shubmayaan haddii aad booqato website-yo inta badan website-yada aad ka baqaso inay dhibaato kaaga soo gaadhsiiyaan ama aad ka soo gaadho computerkaaga wax dhibaato ma gaadhiso marka shay kastood ka baqaso waxaad ku tijaabisaa ama barnaamij kasto testing rabto inaad ku samayso Windows Sandbox adigoo isticmaalaya waxa kaliya ogsoonataa Windows Sandbox wuxuu xogta haynayaa kaliya inta uu daaran yahay ama inta uu shidan yahay haddii aad xidho waa la tirtirayaa dhammaan xogtii iyadoo oo ujeedku yahay in la tirtiro muddadii aad isticmaalaysay dhammaan wixii virus ahaa ee kaa soo raacay meelihii kala duwan aad gashay iyo wixii changes ahaa ee aad samaysay in lagu celiyo sidiisii hore that means Windows Sandbox haddii aad xidho waad ka dhamaatay ama testingkaad sameynaysay waad ku dhamaysatay weeyaan xogtii iyo wixii ku jirana waa la tirtirayaa laakiin Windows Sandbox waxyaabaha ku wanaagsan waxaa ka mid ah faylal Windows Sandbox ku jira waxaad ku dari kartaa computerkaaga mainka faylal ku jirana Windows Sandbox baad keeni kartaa marka tusaale haddaan hal fayl ku sameeyo oo idhaahdo ama folder cusub ama just file ba faylka aan ku qoro qoraal tusaale aan ku qoro test file aan ku qoro kabacdina aan file idhaahdo kabacdina aan save idhaahdo intaa markaan sameeyo waxaan samayn karaa inaan right click idhaahdo kabacdina aan idhaahdo markaa copy markaan idhaahdo computerkayga mainkaan tegi karaa paste baan ku siin karaa and then filekii xaggan igu jiray waan kasoo copyeysto computerkayga ayaan keenay marka taana wax loogu talagalay markaad waxyaabaha qaar aad testing ku samaynayso wixii ku anfaca ee aan wax dhibaato aad kala kulmin intaad muddada isticmaalaysay inaad kasoo copyeysto Windows Sandbox-ka computerkaaga mainka aad keento maadaama Windows Sandbox marka la damiyo xogtii ku jirtay ay baxayso ama la tirtirayo haddii aad rabto in aynay xogtu tirtirmin waxaad isticmaali kartaa barnaamijyada kale ee virtualization-ka loo isticmaalo sida VMware iyo VirtualBox oon hore uga diyaarinay muuqaallo ama casharo oo ku jira isla kororsa aqoon channel markaad ka dhamaysatana ayar baad close siinaysaa wuxuu ku leeyahay ma rabtaa inaad xidho markaad xidho ama markaad damiso dhammaan content-kii ku jiray si permanent ayaa loo delete garaynayaa marka okay baan oranayaa uma baahnid file-kan sameey oo ribbon ka soo copyistay marka qaabkaas waa qaabka loo isticmaalo Windows Sandbox markastood u baahato inaad wax testing ku samayso isaga isticmaal markastood galayso website-yaad ka baqayso inay dhibaato ka soo gaadho isaga isticmaal xogta ama faylasha ku jira hadda rabto inaad si isticmaasho ama inay ka delete garoobina ku soo copyeyso computerkaaga mainka ee Windows-ka